ugu horreyn waan kugu soo dhaweynayaa mustaqbal media maxamed abuukar zubayr agaasimaha wasaaradda dastuurka midda xigta waraysigeena wuxuu ku saabsan yahay howlihii dastuurka ee socday ee wasaaraddu soo wadayba sanadihii ugu dambeeyay si kooban hawshii dastuurka halkee bay maraysaa ee dib u eegista ku saabsaneed. bismillaahir rahmaanir rahiim. Nasriin waad mahadsan tahay, waan ku salaamayaa adiga iyo bahda warbaahinta mustaqbal iyo ummadda Soomaaliyeed oo daawanaysa dhageysanaysa meel kasta ay joogaan. runtii dib u eegista dastuurka oo muddadii laga soo bilaabo 2017 ilaa hadda socday waxaad moodaa inuu maray marxaladii ugu wanaagsaneyd uguna fiicnayd. kolkii hore oo aan dastuurkii dib u eegistiisii bilaabeynay ayaan maxaa la yiraahdaa waxaan u kala soconay laba qaybood. labadaas qayboodna waxay ahayd arrimaha farsamada iyo arrimaha siyaasadda heshiiska iyo wadaxaajoodka siyaasadeed u baahan inay ka galaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. qaabkaasna ayaa lagu qorsheeyay. arrimaha farsamada waxaa si gaara ugu howlgalaya labada gudi ee kala ah guddiga madax bannaan ee dib u eegista hirgelinta dastuurka ee waajibaad gaara u leh inuu si madax bannaani leh dib u eegis ugu sameeyo dastuurkaas heer farsamo, iyagoo ay kala joogteen ku sameynayaan guddiga kale ee loo yaqaano guddiga la socodka dib u eegista dastuurka ee baarlamaanka ka kooban labada aqal shan xubnood ah. dhinac waa taas. midda kalena waa mid ay mandate ama ay door muhiim ay ka ciyaarayso wasaaradda arrimaha dastuurka oo gaar ahaan leh arrimaha fududeynta isku dubareedka howlaha dib u eegista dastuurka oo dhan, iyo gaar ahaan dhinaca wadaxaajoodka siyaasadeed u baahan daldalgelinteedii iyo howlaheedii. inkastoo aysan ahayn mas-uuliyad gaar ah iyada ka saaran, laakiin waxa weeyaan in mas-uuliyadahaas qeybaha ay quseysay oo dhan ay ugu shaqeyn lahayd sidii xal loogu gaari lahaa loona dhamaystiri lahaa. anagoo taa ka duuleyna ayaan qorsheyntii sameynay. markaan qorsheyntii sameynay qolo kasta sida waajibaadkeedu yahay iyadoo la fiirinayo heshiiska aan kala saxiixnay saddexdii adood ay u qaabilsan dib u eegista dastuurka ayaa lagu howlgalay. howsha farsamada horta meel aada iyo aada u wanaagsan ayay maraysaa sida aada la socotaan oo inta badan saxaafad loo soo bandhigay. labadii guddi waxay soo dhamaystireen arrimaha dib u eegista farsamo u baahan ayay soo dhamaystireen ilaa iyo 16 cutub ayay dastuurkii ka dhigeen. aada iyo aada loo qaadaa dhigay. doodo badanaa laga sameeyey ilaa tashooyin aada u fara badan laga sameeyey. shirka u dambeeyay oo saddexdii adood ay wasaaradda ka mid tahay waan isugu tagnay muxuu ahaay Istanbul muxuu ahaa wadanka Turkiga ayaa aada lagu falanqeeyay dib u eegista ay sameeyeen iyo wixii aragtay in laga dhiibto. kadibna maalin dhow waxay ku wareejiyeen labada guddoon ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay ku wareejiyeen. taa macnaheedu maaha in gabi ahaanba dhinaca farsamada ay dhamaatay ma aha oo wili waxaa u dhiman la tashiyooyin in laga yeesho dowlad goboleedyada dalka qeybaheeda kala duwan oo aan ku koobnayn kaliya baarlamaankeedii iyo muxuu ahaa fulinteedii aan ku koobnayn, laakiin bulshada rayidka qeybaheedii noocyadeeda kala duwan xataa in la yeesho. waxaa kaloo dhiman xataa federaalka in la yeesho oo aragti ay ka yeeshaan hay-adaha heer federaal ay aragti ka yeeshaan. kadib ayaa wixii aragtiyooyina laga soo ururay qeybaha kala duwan ee bulshada heer dowlad goboleed iyo heer federaalba kadib laisku ururin doonaa laga soo saari doonaa qeybta ugu dambeysay ee dib u eegis dhinaca farsamo ah. taa marka waxaa mar walba barbar socotay dhinaca dib u eegis aan dhahay muxuu ahaa wadaxaajoodka siyaasadeed qodobada u baahan iyo arrimaha u baahan. arrimahaasuna runtii meel fiican ayay marayaan inkastoo ay xoogaa ka yaro duwan tahay arrimaha farsamo. maxaa yeelay arrimaha farsamo wax kaaga baahan ma aha heshiis siyaasadeed iyo arrimahaas u baahan ma aha, waa wax iska farsamo ee dad oo farsamayaqaan ay ku filan yihiin. laakiin arrintaanu waa arrin ay farsamayaqaan u baahan tahay, farsamayaqaan ay u baahan tahay. waxay kaloo u baahan tahay dadka siyaasiyiinta ah ee saamilayda siyaasadeed heer federaal iyo heer dowlad goboleed inay ku lug yeeshaan, aragti ka dhiibtaan, isla markaana heshiis ka wada gaaraan ayay u baahan tahay. xoogaa way ka yara culus tahay markii la fiiriyo dhinaca farsamada. haba cuslaata waxaad moodaa dowladdaani inay xil weyn iska saartay dastuurka weli si ka duwan si aan lagu arki jirin dowladihii hore ee ka horeeyay dowladdaani. طبعا maxaa yeelay anigu muddadii horena waan ka shaqeynayay ilaa haddana waan ka shaqeeyaa dastuurka. waxaan moodaa 2 teeram inaan ka shaqeynayay. teeramkaana wax uu dastuurka ka fiican yahay habka loo waajahayay, sida loo qorsheeyay, sida loogu wada hadlayo ama dadka oo dhan ugu wada go'an tahay inuu dastuurka dhamaystirmo ma jirto.
sida aad ogtihiin qodobooyinku way badan yihiin horta heshiiska siyaasadeed u baahan waxaa go-aan fiican laga gaaray arrimaha qaybsiga kheyraadka iyo hanaanka doorashooyinka electoral modelka shirkii ka dhacay Baydhabo 5 June 2018 howlaha kale meel fiican ay marayaan oo ilaa ay heer federaal waxay sameeyeen kulamo howleedo oo ay kaga arinsanayeen arrimahaasi ugu yaraan aragtiyooyinka heer federaal oo dhan hal meel lagu soo koobo kadib waxaa inoo xigay inaan maxay leedahay dowlad goboleedyada aan howlahaas u bandhigno iyagana kala niqaashno ugu dambeyntiina madaxda heer federaal iyo heer dowlad goboleed uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka u sareeyo inay kulankoodii caadiga ah ee loo yaqaano golaha amniga qaranka ay isugu yimaadaan ka fariistaan ka niqaashaan kuna heshiiyaan muxuu ahaa arrimahaasi wadaxaajood siyaasadeed u baahan agaasime 2 sano ka hor qorshaha wasaaraddu wuxuu ahaa in dib u eegistiisa iyo ka shaqaynta dastuurkani lagu soo gabagabeeyay 2 sano 2 sano way dhamaatay hadda caqabada ugu weyn ee hortaala ma wadaxaajoodka siyaasadeed baa oo qaar kamid ah maamul goboleedyadii ay leeyihiin wada tashigeena lama qaadanin ama qayb kuma lihin mise caqabad kale oo ku horgudban baa jirta أنا عقبات ما ليه لهين عقبات وحالي لهذا مركي وح أي كاكا دنتالمان أما لبتها إن الدخاجسو أنا لبصنا وصح إن لو أستي إنه لما هذا سيدا آخر شو شيء إن بيش ديسمبر لو بدخل نسقالي تبانك لكن ديسمبر مركان أنا إسقيميني وحن سوق قال نميل آديات أفق وأولي قد لسوق قال بقول كي بتضوات إلا إسيديتن إن كبدن دستور كي وصو إلا هذا ولا صودا ما يستري qaybaha dhiman oo dhan waa 20% oo ay kamid yihiin wadaxaajood siyaasadeed arrimaha u baahan oo aan dhamaantood wada ahayn waa qayb kamid ah kaliya u baahan qaybahaasna aragtiyooyin badan ka diyaarsan oo ma aha wax hoos laga soo bilaabayo oo waxba aragtiyooyin ka diyaarsan tabcan dowlad goboleed laftigooda aragtiyo inay ugu diyaarsan yihiin ama aqoon ay kala yihiin waxa kaliya dhiman muddada aan kororsanay oo ah bishii Janaayo 2020 ilaa bishii June 2020 lixdaas bilood muddada aan u asteynay ayaa waxay tahay in kulamada la isugu imaanayo dowladda federaalka dowlad goboleedyada arrimahaas oo aragtiyooyinka kale yihiin in la isugu imaado laga niqaasho aragtiyooyinka hadii ay kala duwan yihiin isku soo dhaweeyo hal meel la isugu imaado kadibna go'aankii la gaaro marka waa arrimo farsamo ayuu xoogaa waqtigii loogu talagalay ugu dib dhacay mooyaane caqabad hadda muuqato oo aad iyo aad u culus kole noga muxuu ahay ma ogin oo saas u weyn ma jiraan hadana hawshuna si fiican ayuu ku socotaayo dhawaan insha Allah waxaan rajeynaynaa inaan bilowno la tashooyinkii dowlad goboleedyada ee arrimaha wadaxaajoodka siyaasadeed u baahan kuwii farsamadan waa arrin iska fudud oo loo baahan yahay hal mar inaan dowlad goboleed isla aragno farsamada la sameeyay in muddada uu socoto dhan dowlad goboleedyada mar walba la engage galinay oo qayb ay ka ahaayeen oo shirkii Istanbul aan aadan xitaa kuma koobneen kaliya hay'adaha heer federaal kaliya kuma koobneen dowlad goboleedyada xitaa waa joogeen qaarkood xitaa waxaa joogay gudoomiyaasha muxuu ahaa baarlamaanka ee gaar ahaan arrimaha dib u eegista dastuurka u qaabilsan ee heer dowlad goboleed ayaa wada joogeen niqaashkooda ka dhiibanayay aragtiyooyinkooda ka dhiibanayay hadba la socdo marxaladda iyo meesha ay marayeen shirarkii caadiga aan marba isugu imaana ayaa afkaarta la isku wadaagay waxaa jira wax loo yaqaan mocha forum oo wasaaradaha iyo wasiirada dowlad goboleedyada heer federaal iyo heer dowlad goboleed isugu yimaadaan waxaa kaloo jira iyadana OC forum oo ayagana isugu yimaadaan baarlamaanada gaar ahaan gudiyada arrimaha dib u eegista dastuurka u qaabilsan ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed isugu yimaadaan mar walba marxaladaha iyo aragtiyooyinka waa la isweydaarsanaya marka marna dowlad goboleedyada kama maqneen hanaanka iyo wadahadal dib u eegista dastuurka marnaba kama maqneen qodobada u baahan marka wadaxaajoodka siyaasadeed in laga galo ma bilowdeen sidii aad kala xaajoon lahaydeen maamul goboleedyada qaar ay waliba qusayso tabanaya in aan door fiican aysan ku lahayn mise hadda kadib aad qorsheyn rabtiin in aad la bilowdaan wadaxaajoodka siyaasadeed waad mahadsantahay qorshahaas weligiis wuu jiray inaguna qorshe la-aan dad aan qorshe lahayn macnaheedu wax waaye meel ay u socdaan iyo meel ay ka socdaan ma garanayaan marka 2017 ayaan qorshe aada u ballaaran oo roadmap loo yaqaano aan ugu magac darnay dib u eegista dastuurka oo qorsheynteeda laftigeeda ay qayb ka lahaayeen dowlad goboleedyada iyo wasaaradaheedii iyo xitaa baarlamaankeedii laguna ansixiyay shirweyne qaran oo 500 qof in ka badan ay yimaadeen ayaa yeelay
ufududeynayo qof kasta iyo muwaadin kasta Soomaaliyeed inuu la socdo marxaladda la jooga maadaama qorshaha uu cad yahay waqtigiisna cad yahay marxaladda la jooga in la socon kara taas ayaa marka koowaad naga sameeyay ku guuleysnay qorshihii kaasi wuxuu ku ekaa bishii December ayuu ku ekaa 2019 taali ajligeeda maadaama aan sameynay muddo kordhin 6 bilood aan ku darnay maadaama ay jiraan hawlo kale u baahan in la dhameystiro dhinaca farsamo ahaan xogaa yar ugu dib ugu yara dhacnay ayaa waxa la imaanay hadana qorshe kale master plan oo kooban bisha kowgeeda Janaayo 2020 ilaa iyo bisha June 2020 muddo 6 bilood oo cadeynaya waa maxay talaabooyinka la qaadayo waa maxay arrimaha loo baahan yahay in la dhameystiro heer farsamo maxaa ka dhiman u baahan in la dhameystiro arrimaha siyaasadda maxaa mataqaanaa ka dhiman u baahan in la dhameystiro la tashooyinka goorta la sameeyay iyo dadwada la sameeyay iyo waqtiga la sameeyay iyo dadka la sameeyay oo aad iyo aad u tifatiran oo cad ayaa jira marka qorshahaas ayaa hadda ku guda jirnaa dhaxda kamarayna waxaadna moodaa waqtiyada aan u asteynay iyo howlaha aan ku dhaxasteynay maxaa waa qorshahaas sida saxda ah oo ugu haboon in hadda ku socon ilaa hadda wax dib u dhac ah ama guuldar ah kama aragnay ilaa hadda marxaladii ugu xasaasnay ugu muhiimsan hadda joognaa marka oo ah sidii arrimihii aan ka wada hadlaynay heer federaal oo aan dowlad goboleedyada hadda aan la tagno oo aan ka niqaashno heshiiskii siyaasadeed iyo howlahaas dhan inaan bilowno marka marxaladeedii hadda la joogaa insha Allah agaasima dastuurkan 2012 la qoray wasaaradii ka horeysay wax badan kama aysan dhaqan gelinin marka wasaaradda adigu hadda agaasimaha ka tahay ma u maleynaysaa inta lagu jiro xilli dawladeedkan in dastuurka lagu dhameyn karo howshiisa lagu gabagabeyn karo inkastoo afti dadweyne aan wali la gaarsiin karin marka koowaad xilligii hore agaasimo guud anaa ka ahaa xilligan aniga ka ah laakiin farqiga u dhaxeeya markan ama xilli mudxilaadkii hore ee xukuumadii hore iyo mudxilaadkan ee xukuumadan oo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo uu hogaaminayo waxay ugu duwan tahay rabitaanka siyaasadeed iyo ka go'naanshaha dastuurka inuu dhamaado oo heer kasta bale madaxweynuhu ha ahaado baarlamaankii ha ahaadeen shacab weynihii ha ahaadeen ra'iisul wasaaraha ha ahaado howlwadeenadii ha ahaato wasaaradii ha ahaato intaba rabitaankaasi marka iyo u helnaanshaha iyo ka go'naanshaha ayaa runtii ka duwaysa dawladihii hore iyo qaabka ay dastuurka la falgalayeen inagoo marka taa ka duuleynay iyo rabitaanka siyaasadeed iyo ka go'naanshaha ayaa waxaan 100% rajo weyn ka qabaa mudxilaadkan in dib u eegis dastuurka soo dhamaanay laakiin markaas loo fiiriyo hadda ma isleedahay doorkii maamul goboleedyada xoogaa culays badan ee ka imaanayo maadaama markaas ay iska fududeyd in maamul goboleedyada lagala hadlo ama laga xaajoodo ama ay wax ku darsadaan marka fiirso cilaaqaadka dawladda iyo waliba qaar kamid ah maamulada hal mid inaad xusuusato waa xilligaas maxaa wada hadal la galaa dowlad goboleed ma jirin ba dowlad qaarkood waxay ku jireen marxaladda dhismaha ay ku jireen Puntland kaliya ayaa taagneed oo muddadii hore ee u baahnay dastuurka laga hadlo ma jirin dowlad goboleed hadda kaamil yihiin oo ogtaa arrimaha siyaasadda marka laga hadlayo wax sida u fudud ma aha oo ma aha sida farsamada u fududahay oo kale uma fudud laakiin waxa muhiim ah sidee loo waajahayo arrinkaas wajahaada iyo isku dayida iyo muxuu ahaa iyo ka go'naanshaha ayaa muhiimad u weyn ay sameynaysa markii aan fiiriyo marka ka go'naanshaha iyo isku dayitaanka aadka u weyn iyo rabitaanka ayaa runtii aan 100% ku dhiiranaya inaan iraahdo mudxilaadka lagu jiro dastuurkii dib u eegistiisa waa soo dhamaanaya laakiin hadduusan jirin isku dayitaan iyo rabitaanki markaas la dhihi karaa marka muxuu ahaa sidee uu ku dhamaanaya waa la oran karaa laakiin hadda rajo badan ayaa jirto markaan fiiriyo isku dayida iyo ka go'naanshaha iyo kabarqabka madaxda sare ee dalka xitaa ay ka warhayaan marxalad kasta dastuurkan dib u eegistiisa u maraya marka hore 15 cutub ayuu ka koobnaa iyo dhowr iyo 140 qodob hadda marka maadaama 16 cutub lagu sameeyay ma cutubyo hor leh baa lagu soo daray mise waa la balaariyay ilaa hadda wax dhamaada ma jiro ilaa iyo waxaan ansixintii ugu dambeysay kama dambeysay emerto 16 iyo 15 iyo 14 toona ma dhihi karo marxaladii muxuu ahaa farsamadii iyo sameyntii la tashooyinkii ayaa lagu jiraa maadaama lagu jiro soo jeedin waa taas marka soo jeedintu macnaheedu maaha dhamaasho maaha marka soo jeedinta iyo ilaa ay processka ka dhamaado ayaan ka war dhooreynaa ayaan sugeynaa laakiin hadda lama oran karo muxuu ahaa 16 oo ku soo dhamaaday sida ay soo jeediyeen labada gudi ma oran karo hadda muddo ku siman sanad aad qabsateen si wixiisa loo gabagabeeyo
ma isleedahay sanadkaas wax waliba waa lagu dhamaystiri karaa iyadoona la fiirinayo doorka ay maamulada ka maqan hadda ay ku leeyihiin maanaya insha Allah حتى تن معاملة وكله بودلان إيو جبلان وكله وحيابا أدك وجود دران مركل في دستور. ضامن من كل البلية. مسقط إذا إنها كلها هالشان سجونها كوزارة الأهم. وزارة هير فدرالي هير دول مرة بحليهن حليل جوكتا. كل ماذا إني عادة يولعان. كلن قدام بيهاد وحاجة أو وزارة ديني public outreach وعيقلين تدوينها إلى تشوين كسمينا عند دول هذا. ان دراد لو حكي مادن محوها ان بينبو ان حرونتا كوميل غاركا ايدو غوليد كونفور غبي سومالي اي كيمادين دوان waxay u socdaan Jowhar kadib waxa ku xigta Galmudug waxay aadi doonaan hadii alla idmo in Puntland waxay aadi doonaan Jubbaland marka wada shaqeynta iyo xiriirka wasaaradaha iyo ka wada shaqeynta arrimaha dibigis dastuurka marnaba hakad ma galin oo waligiis uu socdo wala wada tashanay wala wada arkay kulma la isugu iimaanay wala wada shiray way jiri karaan kala duwanaansho uu jiri karaa oo laba qof hadii ay isku timaado shayna ka wada hadlayaan shaygaas way ku kala aragti duwanaan karaan laakiin aragti duwanaanshaha macnaheedu ma aha khilaaf marka khilaafki iyo kala aragti duwanaanshaha waa labo in la kala socon u baahan tahay dad isjecel oo walaala ah oo isku dhow bini'aadan siga dhow ayaa wax ku kala aragti duwanaan kara laakiin taa macnaheedu ma aha inay iskhilaafeen ama ay ku kala tageen ma marka qodobada qaar oo dastuurka uu iska hor iimaanayeen kuwaas oo kale ma kala leexisay dibigis markii la sameeyay wax badan ay jira hay-adaha u idmanna howlahaas waay waxay rabaan wixii iskhilaafsan iyo wixii u baahan turxaan bixin wixii u baahan in la cadeeyo wixii u baahan in la kala sooco wixii u baahan in mataqaanaa ay dhigaan meelaha ay ku kala haboon yihiin waa howlo farsamo ee gudiyada u qaabilsan yihiin oo aragtiyooyinna inaga aan ku leenahay ka xukuumad ahaan marka ka wasaarad ahaan marka la fiiriyo dastuurka iyo howshiisa sida ay u soconayso bulshadu kaalin intee leeg oo fiican ay ku leeyihiin waxa laga yaabaa dadku qaar inayba garanaynin buugan dastuurka ama weligoodba aysan arkin oo ay dhegta un ka maqlaan maxaa farsamo adeegsanaysiin si ay u bartaan adeegsi hadda kadib adeegsanayna maaha ma xilli horan ka hadlaynaa maysa maanta xilligii hore aad iyo aad ay ugu duwan tahay laga soo bilaabo 2011 inta aan sameynay la tashooyin dadweynaha iyo wacyigelinta waxaan ugu darnay magac darnay public outreach and civic education wacyigelinta bulshada iyo wacyigelintoodii iyo waxbarashada madaniga inta aan ka qaban dowlad goboleedyada wax la soo koobi karo maaha qaybaha kala duwan ee bulshada ciidanaan la kulmay male ma aha kaliya hal jeer dhowr jeer haweenka dhalinyarada culmaa diinka maxaa dadka professionalska xirfadleyda ah qaybahooda iyo noocyadooda kala duwan dadka baahiyooyinka gaarka ah qaba xitaa dhowr jeer la kulanay odayaasha dhaqanka qaybahooda kala duwan waa la kulanay dhowr jeer la kulanay aan sameeynay marka koowaad waxbarida ama waxbarashada madaniga ee asaasiga waxaan sameynay curriculumyo oo kooban oo aad iyo aad u yar ee dadka u fududeynaa inay fahmaan waxyaalaha asaasiga ee dastuurka maslaadaha ku filantaa dastuurku waa maxay iyo muxuu muhiim u yahay iyo doorka qofka kumaadan ahaan iyo xuquuqda uu leeyahay ee dastuuriga waxyaalahaas dhan loo sharaxay marka fahan oo aad iyo aad u sareeyo aan isleeyahay in macquul ah dadku way fahmeen way jiraan waxaan adeegsanaynaa ma aha muxuu ah qaabkii dadka hal meel isugu keenayay ilan haddii aad hal meel isugu keento dadka dad yar unbaa fursad u heli kara laakiin waxaan adeegsanaynaa imkaaniyaad kala duwan ee dadka ugu faa'iideysan karaan barnaamijka anagoo adeegsanaynaa social media waxaan adeegsanaynaa baraha bulshada waxaan adeegsanaynaa muxuu TV-yada barnaamijyo ka baxo waxaan adeegsanaynaa website-ka laftigiisa hadda barnaamij web portal aan soo wadnaa dadka fursad u siinaya xitaa inay su'aalo soo weydiiyaan waxaan adeegsanaynaa town hall meetings dadka in goobahooda loogu tago dad badan la kulmiyo public forums oo dad badan inta yimaadaan oo TV-da laga hadlo qaarkoodna ay fursad u yeeshaan inay TV-da ka daawadaan su'aalo ku soo weydiiyaan dadka halka fadhiyana ay si toos ah qofka ma taqaanay halka fadhiya su'aal u weydiin karo waxyaalahaas oo dhan waa sameeyay marka qolada u qaabilsan ee wasaaradda ka tirsan ee department-ga loo yaqaan outreach-ka arrimaha wacyigelinta iyo la tashooyinka dadweynaha noo qaabilsan ayaa waxay sameeyeen qiimeyn oo ah isbedelka dadka ku dhacaya dhinaca fahanka dastuurka xilliga hore sidoo ahaa iimaan sidoo yahay marka waxa ka muuqday reportkaas ama warbixintaas isbedel aad iyo aad u balaaran oo dhinaca fahanka ee ku dhacay dadweynaha qaybahooda kala duwan maanta dadku waxay u diyaarsan yihiin inay aragti ka dhiban karaan laakiin markii hore aragti kama dhiban karin ilaa qof waxa aragti dhiban kara qof marka koowaad wuxuu aragtida ka dhibanaya fahansan
hadduusan fahansaneyn wuxuu aragtida ka dhiban lahaa marka way adagtahay inuu aragti wax ku ool ama macno leh ama qiimo u sameynayo dib u eegis dastuurka inuu dhiibto marka stagekaas ama marxaladda waxaan soo gaarnay dadka inay fikir saliim ah oona ku haboon oo macquula inay maanta ka dhiban karaan dastuurka meel kasta ay joogaan ma aha kaliya gobolka banaadir waagii hore waxaa inta badan kulamada ka dhacayeen gobolka banaadir dad kooban oo muxuu ahaa mar walba soo lalaabtaa lala kulmi jiray laakiin maanta waxaad moodaa in aad loo baahiyey gobolada la gaarsiiyey sidaad ogtiin xitaa civil society organizations hay-ado oo mataqaanaaye arrimaha bulshada rayidka u dhaqdhaqaaqa ayaan engage garaynay iyagaa lagu siinayay grants wax loo yaqaan lacago si ay arrimahaas usii qaadaan usii baahiyaan meelo kala gaarsiiyaan taasna way shaqaysay macno weynaa kasoo baxay riboodada laga helna runtii waxay sheegayaan ama xaqiijinayaan inuu ahaa barnaamij wax ku oola dad badana ka faa'iideen ilaan bulshada waxaan aqoonsanay ama ogaanay inay aad iyo aad dadka loogu sii dhow yihiin ee wasaaradda ku adag tahay in ummadan Soomaali weyn meel kasta ay joogaan ay gaaraan marka in la adeegsado bulshada rayid ay dadka kaaga sii dhawaadaan iyadana waxyeeladaha kala duwan oo aan dadka kale ama Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ku gaarin agaasime dadka qoontada ka rabay dastuurka amaba in badan ba aaminsanaa inay qoonto ugu qoran tahay dumarka iyo dhalinyarada ayaa qayb ka ah waliba dumarka taas oo kale iyadana ma iska aragteen dumarka ma ka wada hadasheen maadaama wali hawshii farsamada lagu gudo jiro waa sax intaan ogahay arrimaha dumarka iyo dadka dumarku dhaqaaqa iyo xitaa dumarka baarlamaanka ku jira haddii aan qaldanayn waxaan la kulanay ugu yaraan 5-6 jeer ama 7 jeer gobolka banaadir aan kula kulanay dowladda aan kula kulanay waxaan ka wada shaqeynayna aan ka wada arrinsanayna waxay ahayd kuwatada dumarka kaliya ma aha xitaa xuquuqaadka dumarka ay ku leeyihiin qaybaha kala duwan ee siyaasadda jagooyinka kale ee siyaasiga iyo kuwa xataa siyaasiga aan ahayn intaba laga wada hadlaya marka inagana waxaa inta badan ku xantaaba inaan hormuud u nahay dhinaca muxuu ahaa xoojinta awoodda iyo xuquuqaadka dumarka waata ugu dambeyntii kuwa kamid ah hay'adaha idinka caawinaya in shaqadan sida ay ahayd u socoto ma hay'ado shisheeye baa ku jira mise kaliya dowladda dhexdeeda unba door ku leh doorka ugu weyn ee dib u eegis dastuurka ah horta marka koowaad hay-adaha shisheeye haddii ay door ku leeyihiin waa door oo mataqaanaa aad iyo aad u kooban oo aan faragelin ahayn oo dhinaca howlaha dib u eegis dastuurka laftigeeda la sameynayo laakiin laga yaabo doorkooda inuu ku eg yahay kaliya dhinaca maaliyadda iyo muxuu ahaa maalgelinta howlaha la sameynayo laakiin markii laga hadlayo arrimaha ka hadalka dastuurka laftigiisa niqaashkeedii ka arrinsigeedii ka wada tashigeedii siyaasadda ha ahaato farsamo ha ahaato hay-adaha ka shaqeeyo dhan waa hay-adaha muxuu ahaa Soomaaliyeed ama dawli ha ahaado ama hay-adaha aan dawliga ha ahaado iyo bulshada rayidka Soomaaliyeed ayaa ku lug leh saasana mataqaanaa go'aanka ugu horeeyay markaan qorshii sameynay ku go'aansanay inay actresska ugu waaweyn ugu culus uguna muhiimsan inay Soomaalidaas noqdaan qaybeeda kala duwan fursad loo siiyo waata aad baad u mahadsantahay waa ku mahad celinayna agaasimaha guud ee wasaaradda dastuurka ee Maxamed Abuukar Zubeer mahadsanid waad ku mahadsantahay waraysiga